أريجاي إن تاجنت هاي إذن كأي عنك رحلة الدرية يا رير يا سمع الرالة أديك أنا ديك على قاعدي أنا جي برعنا ديك على قاعدي حمد حياة علمي موسح تلفزيون كعالمي جبد عس 24 هرجيسة مدوب على ده كل يوربهيت وأقول احتراء أرين سنو ونوبهيت وحضرت أي ركست طابنية iyadoo inantan burco la yidhaahdaa la waayey qatar ku dhacay 16 sano ka hor bay noqday dib baa loo soo helay inantii iyadoo magaca nimcayaasin sidata inantii maasha allah ciday ahayd markay noqotay 16 sano kadib cidi kamay xaday waxaa maanta waxaan soo kacay ma garan karayaano معيس يعني برعه نكان يكفر يا وين تيجي نكان خبير بيو تهي هنا خبير بيو تهي هنا تصنيع ولا شيء waxaa daba dadka maanta soo kacay leeyahay inuu neef xoolo xiradii saxabiin laga lawaayaa la tabaa 16 sano dibadda maanta waxay tabeen ma garan karayo waxaan leeyahay dadkuna hadduu yahay dad wada dhashay fadeexada iyo nashad ma wanaagsana cidii inta burco wax ka tabanaysa cidii inta wax u daba socota balse dhaqan anaga aan loogu timaado sidii jecelina anaga ugu qancin doona laakiin inantu cidii ilaahay ka beeray ayay maantana inantu tahay ehelkeedii bay u joogtaa waxaan kale maanta laga tabanayo laga daba socdo cidda daba socota waxba social media hayaanay ka oranay si dhaqan ah noogu yimaadaan anaga ka qancin doona marka imika iyada eegto astaanteeda burco iyo in abtigeedo ay ag fadhiya dadka taa wax ka oran doona abuurtooda iyo sumadooda ata inantii habeerta tahay aanu intaasaan kaga baxaya waxaan leeyahay cidii iwalba diyaar baan u nahay inaan shaqayno inanteeda burco hawsheeda waad mahadsantahay nimcana waxaanu isku nahay laba walaalo abaana kala dhalay ayadu waa ina jaamac xirsi diiriye sharmaarke anna waxay dhashay mako xirsi diiriye sharmaarke fahamnigaa isku hilbaha baanu nahay nimca waxa aan ka ogaa in badan carruurnimo markaan ahaa nimco oo luntay ayaan maqli jiray ka bacdi 16 sano xilli laga joogo ee la inantii nimco waa la helay inantii burco waa la helay burca la oran jiray oo loo bixiyo markii yareed la oran jiray imankana waxa lagu sheegaa nimco yaasin caraale ayaan ka maqlaa haddii la ka dhigo idaacadaha iyo aan ka maqlaa waxaan ka ogahay inantaa inaan fahamni ay tahay oo reerka tahay oo intaa la soo helayna ana cidi ka soo daba hadal maantana fadeexadii iyo milig la marinayo ayaan maqlayaa waxaan leeyahay war cidii haddii la wax walba way dhacaan waa laga wada hadlaa xaqiiqaduna bay tagtaa war cidii hadlaysaay dunya la isku qabsaa tanina waaba dad waa ku kala baxaynaa maxaakabado sharciyaa jiro oo inoo dhisan sharcigii diinta ay ilaahay inoo deshiyey baa jira dad isku dhaqan oo isku afa baynu nahay waar waan kala baxaynaa cidii wax ka qabtaay kaalaya idinkoon fadeexad iyo midka aan waxba marin kaalaya mid garmacsiyala baynu ku kala baxaynaa garmacsiyala oo idina ku fayoobataan annana aanu ku fayoobaano cidii xaqiiqada lehna ay raacdo ayaynu ku kala bixi doonaa waxaanu leenahay ka daaya fadeexadda qabiilka gaadhsiinaysaan ilma isaa ku taxaysaan ama ku taxaysaan sacad muuse ku taxaysaan walaalayaal ka daaya arrinku ma gaadhsiisnaa yaan haddii alla ka dhigo aqoontu ma aha inay fadeexaduun cidlo ka fadeexadayso ee garta sideedaa loo raadsadaa u raadsada sidaasaan walaalayaal leenahay oo haddii alla ka dhigo aanu idinka doonaynaa ciddii wax ka qabta inantaas ee ku hadlaysaay inaad si degdega u timaada
miyeedkan aka caytamaysaan ama aka faanaysaan waxba ma kala wado yaa sharci lagu kala baxaa jira xaqiiqaduna xaqiiqadeeday noqon war kaalaya gabadha